إسراعي دعوة قلبي هو دوامي دعوة الإله درجي دعوة تطول الشي دعوة شيء كويس وطماري بالدعوة شيء كويس وطماري بالدعوة قلبي غدوه بدعوة انت عضو شي دعوة فكأنه إسراعي دعوة قلبي غدوه بدعوة إلهي درجي دعوة انت عضو شي دعوة جير كويس ودنقاضي بلاوة جير كويس ودنقاضي بلاوة ودلتك مركيو إلى الخبر بتخيلهم يلوموا بيدعونا أني يديك جنبك وشيلة ورداني نبدل قديك سرعتي منك بكي قال لهم يستون دونيو ربنا ودك يدعونا حسوسي عشرة بلاوة جعايب قدرتي بلاوة المعنى كدايس دعوة اللي يسكت الأوي دعوة runtii sidaad saaka aad arkaysaan ilaa xalitoolaha arrintan laga shaqaynayay waa geedo madaragtay timir ah aanu isleenahay waa geedihii ugu quruxda badnaa ee geedo caalamka jira waa geedihii ugu habboonaa magaalada runtii in madaragtay laga beero geedahanna waa geedo laga keenay dalka dibaddiisa aan isleenahay waqti badan baa ku baxay maskax badan baa ku baxday runtii annagoo ka jawaabaynana baahida qurxeed ee bulshadeenu ay qabto ee had iyo jeer ay rabaan in magaalo qurux badan oo ay ku faanaan ay caasimad u ahaato magaaladeena cawlaanka iyo dhibaatada foolxumada haysata iyadana inaan wax uun ka bedelo wixii awoodayada ah annagoo ka duulayno qodobadaas baa runtii geedahan laga keenay dalka dibaddiisa aanu isleenahayna waxay ka bedeli doontaa magaalada qurux la'aantii hore ee haysatay bay ka bedeli doontaa geedahan waxay daba socdaan sida caadadayada ahayd geedihii quruxda iyaduna u saaxiibka ahaa ee horey loo keeni jiray magaalada aanu isleenahay wax weyn bay ka bedeleen bilicdii magaalada aanu isleenahay haddana kuwanna waxay ka bedelayaan insha allahu tacaala kuwa hore wixii qurux ee ay soo siyaadiyeen in la mid ah iyo in ka badan baa ay samayn doonaan insha allah waddadan waa waddadii dhakhtarka kaaramarna oo saaka beeritaan lagu samaynayo geedahaas timirta ah waa geeda aan kalsooni ku qabno boqolkiiba 200 ilaahay idankiisa insha allah in ay sida ay u qoyan yihiin ee loo keenay inay madartay ay ku qabsan doonaan ayaan kalsooni boqolkiiba 200 aan ku qabnaa sababtay tahay tijaabooyin badan baa la soo mariyay carrada laftigeeda waa la baaray iyaga laftigooda geedaha laftigooda in cimilada ay la qabsanayaan in kale marka horeba waa la sii tijaabiyay bay ahayd baaritaan ilaa 3 bilood oo socday baa lagu sameeyay marka waxaan isleenahay in insha Allah taala ay si fiican ay u qabsan doonaan bulshadana waxaan ugu baaqayaa in sida ay quruxda ay u rabaan ay u ilaashadaan geedaha haday kuwan tahay haday kuwa kala tahayba si ay u rabaan hadiya jeer magaalo qurux badan oo caasimada ma la qurxiyo ma dhir fiican lagu beero si u leeyihiin in ficilkeedii hadana ay u bedelaan oo ay noqdaan bulsho iyaguna ka qayb qaadanaya bilicda magaalada iyo quruxda magaalada iyo qurxinteedaba ka qayb qaadanaya oo ay ugu horeeyaan nadaafadda iyo madartay geed beeridu ay ugu horeyso haday xaafad noqotay inay ka beeraan iyo hadii ay waddo noqotay in laga beeraba inay ilaaliyaan baan runtii ka codsanayna